السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي دي خالقة ويدين وتسلامي ميل والبقات أدونك جوكتان ما شاء الله. أنا قوان في عنها إذن أنا محرجيني إن في عندهن ما أنت waxaan doonayaa inaan video reaction ka sameeyo videogaas oo ku saabsan 10 calaamadood oo waaweyn ee ka hor qiyaamaha dhici doona. marka insha Allah taala aan isla socono insha Allah taala. Hadith is in Sahih Muslim that our Prophet ﷺ came across the Sahaba one day. They were sitting in the masjid. He came and they were having a heated discussion. So he said to them, "What are you discussing?" So they said, "We are talking about when Qiyamah will happen. We're talking about making a guess, when will Qiyamah happen?" So the Prophet ﷺ said, "Qiyamah will not happen until you see its 10 signs." So now he said there are 10 signs that are directly linked to Qiyamah. There are 10 that are definitely... MashaAllah. Sheikh Uleyahay Nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa maalin asxaabada masaajidda joogto ayuu u imaaday ayagoo wax ka sheekaysanaya. Kadib ayuu weydiiyey asxaabtii, wuxuu dhahay, maxaad maanta ka sheekaysanaysiin oo idin aruuriyay hal meel isku keenay? waxay dhaheen waxaan ka sheekaysanaynaa maalinta qiyaama iyo waqtiga ay dhici doonto. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri, qiyaamaha ma dhaceyso ilaa aad aragtaan 10 calaamadood oo waaweyn. marka 10 calaamadood aan wada aragno insha Allah. In a different category. Qiyamah will not happen until you see its 10 signs. Then he mentioned them one by one, and I'm going to quickly list them now, and inshallah later on in our series we'll go over each one of them in a lot of detail. Number 1, he said the dukhan. Dukhan is a dust, smoke, smog, the dukhan. And by the way, all 10 of these midka ugu horeeyana waa duqaan. Duqaankana waa qiiq. These are specific. These are not trends. All 10 of these are one-off incidents. So these 10, it is a clear-cut sign. Something major is going to happen, catastrophic, cataclysmic, and everybody will recognize this is one of those major. waa 10 calaamadana waa 10 calaamad oo xaqiiq ah wayna dhici doonaan qiyaamaha ka hor. waa wax been la beelin karin oona been laga sheegi karin. Major signs. So number 1, the dukhan. Now, and this is not in order. We're going to mention this. This is just 10 that he said. They don't necessarily be in this order. Number 2, the Dajjal. And that is a long discussion. We'll talk about that. tan labaadna waa masiixu dajaal, awarkii beenaalaha ahaa oo ilaahnimo sheegin doono oo ku dambeeyna nabi ciise calayhi salaam ayaa dili doona. marka dajaal isagana waa soo bixi doona. Number 3, the Dabba. And the Dabba is the beast. The beast. And he's mentioned in the Quran. daaba ayadana way soo bixi doontaa. waa mid ayadana quraankana waa lagu sheegay. mid kalena maanta qiyaamaha soo bixi doontaa waa daaba. ilaahay ayaa garanay say u egto, anagana ma arkin mana garanayn, laakiin way soo bixi doontaa. inaan aamino ayaa muhiim ah. Number 4, the rising of the sun from the west. So calaamada afraad waa qoraxda ka soo baxda galbeedka. Ilaahumma adan afi ya hayyu ya qayyum. the sun rises in the east, sets in the west. One day it will rise from the west. Number 5, Nuzulu Isa ibn Maryam. The coming down of Isa ibn Maryam. Nabi Isa alayhi salam soo noqoshadiisa asagana uu soo noqoni. Okay, this is a specific incident, and that is not ambiguous at all. Very clear. Number 6, Ya'juj and Ma'juj, and the coming of Ya'juj. tan lixaad waa Ya'juuj wa Ma'juuj, ayagana way soo bixi doonaan. waa qoom aad u badan, adduunka oo idilna way qaribi doonaan ilaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo tixiri oo soo diri doono. tixirigaas ayaa layn doona. And Ma'juj. Okay, that is a major sign, and we'll talk about them and some of the problems that are raised by this issue. We'll talk about it very frankly when we get to inshallah. Number 7, 8, and 9, 3 zalazil, 3 earthquakes that will shake the world. There's going to be major. This isn't a regional earthquake. dhulgariir aad u fara badan ayaa dhici doona maanta qiyaamo.
marka calaamadahan tobanka ah waa isdaba socdaan. These are earthquakes that essentially the world will know it is an earthquake. 3 zalazil that will shake the world. In one hadith, each next one will be bigger than the first one. So it's going to be 3 consecutive earthquakes that are, the whole world will know that there is an earthquake taking place. And then he said, وَآخِرُهُنَّ, the last of these signs, number 10, the last of these signs is a blazing fire that will emanate in Yemen and will force the people towards Ard al-Mahshar, or the land of resurrection. The land of resurrection. The very last sign of Judgment Day will be the fire that will force people to gather in one place, and that will be the end of humanity. midka ugu dambena waa dab aad u weyn ayaa kasoo bixi doona wadanka Yemen. dabkaasna dadka idil ayuu wadi doona, wuxuuna geyn doonaa maxsharka qiyaamaha. waa meesha ugu dambeysa maanta qiyaama. Ilaahay inuu dambi dhaafo dhammaanteena. 10 calaamadood waa 10 calaamadood oo dhici doona qiyaamaha ka hor. qiyaamaha ma dhaceyso ilaa ay dhacaan. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ayaa noo sheegay mid kale ee ka dambeysa oo ka weyn tahay. marka insha Allah ta'ala waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysateen. Ilaahay inuu dambi dhaafo insha Allah. dambigiina iyo dambiga waalidiinteena Ilaahay dhaafo insha Allah. inta ku kulmayno video kale insha Allah waa inoo video kale xiga.